ورحمة الله وبركاته. dhalinyarada saxaafadda waa mahadsantihiin. alxamdulilah ilaahay waa nabad keenay. wax yar oo waxaan rabaa inaan dul maro xaaladda dalka siyaasad iyo amni ahaan labadaba. xilligan sidaa wada ogtihiinba waxaa rajo weyn lagu qabay inay doorashadu socoto, laakiin nasiib darro weli arrintaas ma dhicin. waana arrin lagama maarmaan ah si dalkan uu u helo xasilooni iyo horumar, doorashooyinku inay ku dhacaan waqtigooda. dabcan sidaa wada ogtihiin waxaa la quurdareynayay in khilaafaadka ka jira habka doorashooyinka in la xalliyo oo si nabad iyo wadahadal lagu xalliyo, laakiin weli ma dhicin. mucaaradku mar walba aragtidoodu waxa waaye in la helo doorasho xur ah oo xalaal ah oo dadka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaalida taageeraba ay ku qanci karaan. doorashaduna waa arrin qaran, ma aha arrin qolo gaar ay u leedahay. marka waxaan aaminsanahay in weli waqti arrimahaas lagu xalli karo la haysto. dadaallo fara badan waa la sameeyey runtii, laakiin laguma guulaysan. weli annaga waxaan farta ku fiiqaynaa in laga maarmaan tahay in laga gaaro xal iyo heshiis ku aadan arrimaha doorashooyinka si loo aado doorashooyin lagu qanacsan yahay, natiijadoodana la wada aqbalo. mararka qaar waxaa la isweydiiyaa 8 February haddii la gaaro maxaa dhacaya. annaga rajadeenna waxa waaye in ka hor laga heshiiyo nidaamka doorashooyinka oo la gaaro 8 February iyadoo laga heshiiyo doorashooyinka, sidaasna doorashooyinku noogu qabsoomaan. dalkaanna waa wada ognahay maraaxisha adag oo soo maray iyo maanta meesha uu taagan yahay. dhaqankii wanaagsanaa ee 4 sanaba in doorasho aan qayla ka daba yeelin la qabto waa lagama maarmaan in la joogteeyo oo kaas uu dhaqan noo noqdo siyaasi ah. dhinaca kale amniga sidaa la socotiin beryahan waxaa soo kordhay culeysyo fara badan oo ay mataqaanaa ku haayaan dalka al-shabaab meelo kala duwan oo dalka ka mida. arrintaasuna waa arrin iyaduna culayskeeda leh, dadka Soomaaliyeed meelo joogaanba culays ku haysa, saameyn ku yeelanaysa dhaqaalaha iyo dhaqdhaqaaqa dadka iyo noloshooda intaba. marka waxaana fursad sii siinaya kala taagnaashada siyaasadda iyo aragti la'aanta siyaasadeed. marka dhinaceenna waxaan diyaar u nahay inaan qayb ka qaadanno sidii loogu heshii lahay arrimaha doorashooyinka. waxaana idiin ballan qaadaynaa anoo ku hadlaya magaca mucaaradka inaanan ka shaqaynaynin wax dalkan dhibaato u keenaya, oo aan rabno in dalkan nabadiisa iyo dowladnimadiisa inay hore u sii socoto. dadka Soomaaliyeedna ay ka wada gaaraan ama dadka ay khusayso inay ka gaaraan heshiis qanaaco leh oo keeni kara jawi xasiloon oo doorasho ku dhacdo. waana ogtihiin dadka hadda mucaaradka oo anigu hadda aan matalo waa dad kulligooda door wanaagsan ku soo lahay dalka, nabad ka soo shaqeeyey, haddana u taagan nabaddaas. mana ogin cid mataqaanaa ka shaqaynaysa wax intaas ka duwan. marka gogosha nabadeed ayaan ku baaqaynaa mar kale. sababtuna waxaa waaye dowladnimada hadda socota waxay ka soo bilaabatay Djibouti, gogol hal sano socotay oo nabadeed oo walaalkeen Ismaaciil Cumar Geel oo dhigay. marka waxaan leenahay gogosha nabadeed hala fidiyo, hala isugu yimaado, hana laga wada hadlo waxa mataqaanaa lagu kala aragti duwan yahay. aad iyo aad u mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. ma iska daysid su'aalaha mar kale waan ka dhiganno. hay saas ku fiicanta.